معناها مين لبها بين دحا نكرر كودان شيء هذا معناها عدن فميل أو وين والد أمورال أو دان تجي مين لبها بين ويلبا ما لوس عنايا وهذا اللي جالس نقنايو دانك وايد تتكاس أبارتيس معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي أناتكم جعلنا يكو حرن كل ميديا waxaan idin leenahay waqti wacan wanaagsan meel walba adduunka aad ka joogtaan waxaan idin haynaa inaan idiin soo gudbino hees ka hadlaysa tacliinta iyo waxbarashada heestaas macnaha aad iyo aad ii dhiirigelisay markaan dhageystay saameyn badan ay u yeelatay aan filayo dad badan oo Soomaaliyeed inay limid yihiin heestaas macnaha inay daawadaan hees macnaha hees ahaato laakiin waxay ka hadlayso oo baahana markaan ka hadalno tacliinta ka hadlaysa waxbarashada dhalinyarada inay wax bartaan qofka soo yarna wax barto oo ku dadaal waxbarashadiisa macnaha waxay qayb ka noqonaysaa qofka markuu guursado noloshiisa mustaqbalkiisa ayis dhan waxay qayb ka noqonaysaa macnaha inay saacido qofkii inuu tacliin yeesho oo wax barto asxaabta aan ku jecelna hadalka ay u sii fogeen macnaha heestina u gudagalno insha Allah adigoon kaliin dhigan ashaqan ku dhaawacay ka dhigaya أصحاب سيد المغرس أنا حسيت بعيلاد هاي أديكم تعليم ديجان عاشقان كده وعي وحوك ديجان هاي معناه وحلول جد أديك وحبرنين معناه عاشق كوجلي قف على هذا المستقبل نهي السكوت ديري وحوك ديجان هاي وحوك ديجان هاي عن سيد داون وحوك ديجان هاي هذا وين الشيلان أفكر دولون دولون إنما حبيبي dabar weynay waxa uu ka dhigan yahay inuu mar ismoogtahay dabar weynay jiilal dadku oo la dhalan dhalay dabar weynay jiilal waxa la macnaa jiilalka abaarta markay dhacdo xilliga abaarta dadka reer baadiyaha u yaqaano abaarta markay dhacdo oo dadka abaar soo wajahdo abaartaas la filay macnaa amla saadaalnaa waqtigii ee dhamaan lahayd ee si dheeraad ay dhaafto oo dadka oo la dhalan dhalay macnaa abaarta waxay leedahay biyo la'aan iyo raashin la'aan wax la'aan marka aan ka soo qaan biyo la'aanta dadka oo la dhalan dhalay oo aad macnaa oo زائد وقبتي ميل هلا بين دحا أو كلها معناها فرانك ميل هلا بين دحا أنا سيدي جسنا معناها وقصوا عنا يستا نتفاعلوا جسنا عبر وين الشيلان ولا دولون يا حبيبي انت بالقداشي دوريني دعنا عوتك معناها مين لبها بين دحا نكرر كودان شيء هذا معناها عدن فميل او وين والد امورال او دان تجي مين لبها بين ويلبا ما لوس عنايا وهذا اللي جالس نقنايو دانك وايد تتكاس أبارتيس معناها دانا أوراديسي أور دحدا كيقول موير معناها أورتي أبيا كود أقصد أنا زي ذكر بدياش أبي غير معناها دانكاس أور كأسوة اللو ما اللي وهبين دحدا كيقول مي صارنا عادي معناها جعلك وقال أذو حبرين محوك ديجي هاي أنت عمل الله وهبين اللو ما أنت أون أنت الله سوى بيو إن أورتي أبيا كود أو أنا ذاتك أودي فملك كادو مي أنا سيدي جسنا أصحابته انت بالقداشي دوريني دعنا عوتك انت بالقداشي دوريني دعنا عوتك ha ku dheelin iskuulka dhameyso oo kuleeyahay macnaha wuxuu kuu sheegaa digniin iskuulka inaad dhamaysatid ha ku dhiiran jecel iska dhaafo ku dhahay wax jeclaatid tabartaada ma ahayn macnaha adig wax baran oo tacliin lahayn wax jeclaatid mustaqbal ma ku ahan inta laga soo sheekeeyo dhan oo dhibaato ee macnaha qof soo wajihi kara ay tahay aan si daawna asxaabta
arooriyaan adduunka jacaylkii dhalinyaradii waxaa dilay sida dhalada arooryaad oo ku leeyahay macnaha dhalintii waxaa dilay sida dhalada arooryaad soo dhawada jacaylka dhalada arooryaad waxaa la macnaha habeenka waqti dambe dhalada imaanaysa macnaha saantaada markaa fiirisid iyo qaabka sida macnaha dhalinyarada soo dhawada jacaylka ay usoo dhaweysanayaan jacaylka sida fudud macnaha wax jeclaanayaan sida degdegta le macnaha iyagoo macnaha waqtigii jacaylka gaarin ama jacayl waqtigiisa gaarin ama tabartiis lahayn wax u jeclaanayaan aan si daawano asxaabta mar hadduu dhigo qaad oo dhaqaaq yahay laakiin mar hadduu dhigo qaad dhufo dhaqaaq yahay kala dheeli noqotay macnaha wuxuu ku leeyahay adiga wax baranin ama wax tacliin lahayn ama oo heerkaas gaarin haddana jacayl aa gashid kala dheeli noqotay macnaha shay laba macnaha isku miisaan ahayn haddii la garab dhigo miisaan la saaro mida hooseynayo marka macnaha wuxuu noqonayaa adiga wax baranin jacaylku gala inaa hooseysid wiil oo noloshaada wax ka dhiman tahay aan si daawan asxaabtayda waxaa dilay sida arooriyaan sida jacaylkii mar hadduu dhigo qaad oo dhaqaaq yahay aladheelin haloo dhugmaysaa rabadaad marayso aad ku dheel marayso waa loo dhugmaystaa dhabadaad marayso aad ku dheelmanaysa ogolayaan macnaha waa la fiirsadaa ama waa la hubiyaa wadada aad maraysa ku dheelmanaysa dadka rimiga aad haysta ku socotaa xillida habeenkii markaa dheelmanaysa ama meel asafro aadaysid wadada aad marayso waa loo dhugmaystaa waa la hubiyaa xaalkeeda sidoo yahay macnaha markii aad adiga wax tacliin lahayn aad guursanaysid marka iyo taas waxaa loo macno tahay waa loo dhugmaystaa waa la hubiyaa macnaha inaad mustaqbal yeelatid ina waxaa ka horeysa inaad wax baratid aan si daawana asxaabta haloo dhugmaysaa rabadaad marayso aad ku dheel marayso gelin iskoolka dhammayso ku dhaqaa tagin jacayl ha ku dhiran iska dhaha ha ku dheelin iskoolka dhammayso oo ku dhaqaaq oo ku leeyahay macnaha xitaa haddii ay dhacday inaa adiga iskool dhigana ka tagta oo guursatay ama si kale xaalad kaa noqoto wuxuu ku leeyahay ha ku dheelin iskoolka dhammayso oo ku dhaqaaq macnaha digniin ama waano heestan waxay ku sheegaysaa inay digniin ama waano ay tahay wacyigelin ay tahay dhalinyarada aan aad ku jecelnahay ay ku xiran kulmiye media asxaabta soomaaliyeed kulli meel walba aad joogtaan heestan waxaa laga yaabaa dad badan inaynan maqlin laakiin heestan waxay xambaarsan tahay ama ka hadlaysaa qofki inuu wax barto oo tacliin yeesho inay muhiimad leedahay oo qof markuu isku filnaansho gaaro wax walba markaas ay u fududaanayaan marka waxaan idin leenahay anagoo isku duuban asxaabta kulmiye media waxaan idin leenahay asxaabtaan aad u jecelnahay mar walba oo nagu xiran in aad si fiican aad iska hubaysaan macnaha aad wax barataan hadda adduunyada dhan waxay noqotay waxbarasho qof walba maxaa tacliin macnaha qof walba waxay noqotay maxaa taqaanaa maxshaadi maxaa haysataa marka waxaan idinku waaninaynaa soo qaadan heestan macnaha waxay tahay heesaan ma soo qaadan laakiin waana inay tahay wacyigelin ay tahay ay ka hadlayso macnaha in mar walba laga fiirsado wax la barto wax tacliin la yeesho inay muhiimad ay tahay waa ku mahadsantii sida quruxda badan ay noo daawateen anagana waan idin jecelnahay waxaan idinka codsanaynaa ina subscribe nagu saacidaan like comment share wax walba aad macnaha aad awoodiin aad iyo aad waa mahadsantiin kulanti